Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan waa salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba way joogaan. Waxaana leeyahay Ilaahay dalkeena nabad ha nooga dhigo, colaadaha iyo waxaan isdaba yaacay Ilaahay ha naga badbaadiyo. Cudurrada adduunka ka dilaacay Ilaahay ha naga badbaadiyo. Ilaahay dadkeena qulubtiisa ha isu soo jiido. Insha Allah waxaan idinla wadaagayaa gabay la yiraahdo Dhoohan. Waan ku sifeeyay bal Soomaalida Ilaahay nimcada uu siiyey siday uga indhalaayihiin. Dhacda gabay haddaan dhuujiyoon dheeli ka ilaasho. Dhacdo hore waxaan dhacay haddii dhaqamadan yaalla. Waxba dhaafi maayo haddaan dhab uga sheekeeyo. Ninkuu dhibo ninkii dheefsaday dhagar ninkii mooda. Dhacdadii iyo ujeedada anoon qodob ka dhaafaynin. Anoon soo dhoweynayn cid qolana dheeraynin. Dhegeysta duul iyo hodhimane hadal ma dhuuxdaane. Dhegeysta duul iyo hodhimane hadal ma dhuuxdaane. Waxna dhiba ma diidaan runtana uma dhowaataane. Miyaan sida la dhaamin dad iyo iska dhimateene. Dadka dhowrsan iyo maalintan dhaqanka loo laaban. Dhibka kama baxaysaan dad iyo dhigaha taagteene. Dhulka nagu dhaqaaluu lahaa meel kastaba dhooban. Dhisme iyo wanaag buu lahaa dhaxal galoo fiican. Dhaqamay lahayn bulshadu xeeran lagu dheelin. Diinta dhex taalo ma jirin dhinac kaloo aadno. Dhalinyaro xishootaan lahayn dhiiro lagu faano. Dhalinyaro xishootaan lahayn dhiiro lagu faano. Oday dhinac ka joogaan lahayn samaha loo dhiibo. Isaga dhameyn jira wixii soo dhexgala beesha. Dumar dhaqanka jecel baan lahayn aqalka loo dhiibo. Iyaga dhalaan tababaro hadalka dhuuxsiya. Dhaqankeenu waa tuu ahaa dhayda iyo ruuxa. Ninkii dhaqasho geel ka badsaday dhaxalna ka weyn. Markii la isku dhigo dhinacyo badan dhimasho reer gaartay. Isaga la dhiibaa haddaan la isku dheelayn. Loodu dhaxal gal weeye haddaan dhinac ka taataabto. Dhaydeedu waa suwag haddii meel lagu dhigo. Ari waa ma dhaafaan markay dhaqasho reer joogto. Isaga dhalaanka iyo habluu dheefa ka helayaan. Afartaas intaan soo dhex maray dhowr ma ka hikaash. Badda dhaafi maayo haddaan ku dhex gala maaso. Xoolaha aadan dhaqan buu rabbigu ku dhex dhigay taasi. Dhuux iyo lafaha subag ayaa kaaga soo dhacay. Dhafoorada ku jiidmiyey ishaa dheeftu kaa geliyey. Sidii aan u soo dhowran lahayn maan u dhiga taagno. Inaad dhaafi khayrkaa ma ogid waan si kuu dhigaya. Dhab u qaado taladeedu waa dhaxalgalkaagii. Dhab u qaado taladeedu waa dhaxalgalkaagii. Waxa dheeli fud laga helaa dhagacalin leeyay. Webiyada dhulkeenu miraa lagu dhaqaaleeyo. Beertoo dharaysu biyaa dhinac ka siiyaa. Aan dhaqaaqno xooggeena waan uga dhergaynaa. Ama dhoofo inay ibliis gacan loo dhiibto. Inta niman la dhowraa walloon dhaxal la gaarayni. Aan dhammayno nimayow raggaan dhiigga naga daashi. Ooyaan dhib loo arag abwaan dhowrsadaan ahay. Adduunyadu dhib way soo martiya dhamacyo baaruude. Kalamana dhaqaaqaan hadday booga dhimayaane. Ma waxaa dhibowg iyo nabaday lagarta aan baaqan. Uma dhalanba Soomaalidu dhulkee dhaqan ayaa keenay. Runtii haddii aad fiirisid qaab dhaqameedka ee Soomaalidu sida ay u dhaqanto. Oo dalkoodii ay u baabiinayso iyaga ay isu baabiinayaan oo nolosha adduunka oo dhan baysanba u fahansaneen. Waxaad u malaysaa inaysanba dhulka iska lahayn ay yihiin dad iska soo degay oo aan kala jeclayn haddii uu hallaabay iyo haddii uu wanaagsanaado intaba. Marka kolley shakhsi walba Soomaaliyeed waxaa la gudboon hadduusan ummadda Soomaaliyeed waxba u qabanin inuu shartiisa uu ka nabadgeliyo qalqiga Soomaaliyeed oo muslimiinta ah. Waxaan rabaa inaan wax yaraan ku baraarujiyo dowladda Soomaaliyeed. Maanta dalka idinkaa hoggaan u ah. Kolley waqtigii intii dheerayd way soo xukumayseen waxa idin harana way yaryihiin. Waxaa laydinkaga fadhiyaa inaad dalka aad xasilisaan oo aad ka saartaan ii sheeg awoodaha kaloo oo dalka idinla maamulaya shacabka Soomaaliyeed si hore ugu socdo. Horta waad ku mahadsantihiin in siyaasadii dibadda aad wanaajisaan. Waan rajooyin badan aan leenahay insha Allahu tacaala. Laakiin taas macnaheedu maaha inaad wada fiican tihiin oo dowlad idinka fiican aysan jirin. Maaha waxyaabo badan oo aad ku cuntihiin baa jira sida gudaha weli waxa aad ka qabateen way yar tahay. Waxaana loo baahan yahay inaad maanta ay u soo jeesataan inaad gudaha wax ka qabataan. Dowlad goboleedyada aad midba dhinacaad u bacsanaysaan oo aad aad rabtiin in wixii adinku aad rabtiin ay ka shaqeeyaan meeshaas. Tala idinkala dhaxaysa waa inaad la tashataan. Waa inaadnan burburin wixii shacbiga goboladaas degani ay raalli ka yihiin oo ay rabaan. oo aad nabadoonno Soomaaliyeed aad noqotaan. Looma baahna inaad noqotaan
dictaatoriyad waa wixii dalku uu ku burburay. taasna waan idinka waaninaynaa insha allahu tacaala haddaan nahay abwaanada soomaaliyeed. ilaahay cudurkan ha naga qabto oo ilaahay cudurkan ha naga qabto. ummad muslimiina waxaan rajaynaynaa inuusan waddankeena isa soo gaarin, waayo awood ma lihin maanta aan isagaga difaacno, aan dadkeennii aan yacni maaragtay sidii aan u istaajin lahayn aan falankeed aan u qabanno ma aan lihin maanta. marka waa mahadsantihiin dhammaantiin insha allahu tacaala. waxaan codsanayaa kilibkan inaad sheergalaysaan. aad waa mahadsantihiin.